السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaada reer dhadhaab maanta waxaa dhacay shirar lagu kala galay saddex xerooyinka dhadhaab xagga dheera ifo dhagaxle head of operation oo UNHCR ayaa maanta imaaday. Head of operation UNHCR wuxuu imaaday inuu caddeeyo guuritaankii dowladda Kenya ay sheegtay in qaxootiga ay helayso 2022 bishii lixaad taariikh 30 ay heli doonto xerooyinka dhadhaab. maadaama aan nahay dad qaxooti ah dadkeeni qaxootiga ahaa waxaan ka maqnay idaacadaha iyo niisaha Kenya in Kenya ay xereyso wadanka Kenya ay Soomaaliya u celinayso qaxootiga wali dawladda hay'adda Kenya UNHCR wali maan ka maqlin ninka markuu noo imaado wuxuu weydiiyay in arrimahan ka maqasheen waxaan idaacadaha waxaan ka maqalnay marka wuxuu dhahay UNHCR kama maqasheen maya maanta ana socdo UNHCR ka socdo UNHCR ta ka maqleedeen maanta waa tan u dhahay marka wuxuu dhahay dawladda Kenya UNHCR iyo dawladda Soomaaliya iyo dawladda dawladda Soomaaliya iyo UN Soomaaliya way heshiin dhadhaab in la xiro in dib loo celiyo qaxootiga ku nool xerooyinka dhadhaab oo reer Soomaaliga ah in dib loo celiyo kaamkan waa la xiri doonaa kaamka dhadhaab waa la xiri waa bii kama dhibcaantaas ninka uu dhaartay wuxuu ahaa nin muslim ah wuxuu ku dhaartay Ilaahay oo markaati ka hawde inaan dadkii mas'uulka ahaa oo xerooyinka dhadhaab deganaa aan u sheegay in kaamkan mas'uulka aan ka ahay aan xiri doono aan u wareejin doono dadkii deganaa wadankoodii hooyo oo Soomaaliya anigana oo mas'uulka ka ah haddana aan ugu horumari doono Muqdisho oo aan tagi doono Muqdisho aan joogi doono aan ayaga Muqdisho waxay waxbarasho iyo biyo iyo ay meeshaas ku helayeen aan xagga ku diyaarin doono oo anigana xagga mas'uul aan u noqon doono oo meesha aan joogi doono Ilaahu ugu mas'uulka UNHCR ka socday wuxuu sheegay in xaradan la xiri doono oo xaradan qof uu joogeen ka ahayn qofkii Kenyan ah oo deganaan doono sharci Kenya haysto waxyaabo badan la weydiiyay waxyaabahan weydiinay waxa kamid ahaa waxyaabo asagoo noo sheegay ka horeey wuxuu noo sheegay in tirkoob uu jiro oo bilaan doono Ilaahay hadduu dhaho Jimcada soo socoto taariikh 4 bishii lixaad 2021 uu bilaaban doono tirkoob oo ka bilaaban doono xerada dhagaxley uu ka bilaaban doono meesha transitka lagu galo tirkoobka waxa la dhahay wuxuu ka bilaaban raashinka ma jiro raashinkan uu socon doonaa tirkoobka iyo raashinka uu socon doonaa wuxuu dhahay qofkii raashin soo qaato tirkoob uu gali doonaa tirkoobka marka maxaa la isweydiin doonaa waxaa la isweydiinaya tirkoob waa kala bixis ah dadku waa kala baxaya waa kala tagaya isma haysta waxaa la isku haysanaynin adii kibaanaha leedahay kaarna waa leedahay labada meel ay ogeysaa waxba ma jir ishaysi ma jir meeshan qaadka hadduu 10 leeyahay ka soo qaad 10 qof ay tahay 9 qof kibaana ay leeyeen qof kibaana uu leeyahay qofkaas keenaysa qofkaas kibaana hadduu qalad ku qaato waa laga qaadaya hadduu qalad ku qaadan Kenyan uu yahay Kenyanimadu u baxaya intii kale waa kala goosanaysiin waa kala bixisiin iskuma jiraysiin xeradan waxa kala degan dad badan oo kaararka xiran yahay cid allaale cidii kaarkeeda u xiran yahay oo tirkoob xarada dhexli joogto ifo masax dheer joogto tirkoob ha u imaato kaarkaaga hadduu xiran yahay tirkoob u imaaw macluumaad warbixin laga qaadi doonaa kaarkaaga haddii warbixin sax ay sheegto kaarkaaga waa lagu furayaa dad waxaa jira kibaana haysto kaarna haysto dadka kaarka haysto kibaana haysto halka waa soo sheegay ma kibaana u gooy ama kaarka u gooysa labaas mid ayaad raacaysa waxa kala meeshan aan kala hadalnay ninkii meesha imaadi mas'uulka ah nin kasta qaxootigan ku joogo si qaxootilimo ah sharciga doonta haystay qaxootilimo ka joogo oo kaarba leh misboono leh maxallaha kaarkiisu ka xiran yahay tirkoob waa inuu imaadaa tirkoobka waa inuu imaadaa tirkoobka marka see loo gelaya waxaa jira guddi ka shaqeyn doona tirkoobkaas si loo gelaya afaaraha ka shaqeynayo Nairobi ka soo duulay isniintii ay imaanayaan magaalada Dhadhaab shir ay isniintii ku gali doonaan Dhadhaab talaada iyo arbaca iyo jimcaha talaada iyo arbaca iyo khamiis waxay ku wareegi doonaan 3 xare oo xerooyinka Dhadhaab ay ku wareegi doonaan sifa ay u wadaagaan sidii loo geli lahaa tirkoobka ifo xaga dheer iyo dhagaxley jimcadina taar 4 wuxuu ka bilaaban doonaa xerada dhagaxley ayuu ka bilaaban tirkoobka waxa lagu dhiin rubuucda mud bilaawanayo
meelahaas bilaabanayo bildan bilaabanayo waxa waxba kama jiraan waxa kale oo xusid mudan in ninkaas uu noo sheegay in wadankaaga hooyo lagu celin doono ninkii rabo iyo ninkii rabinba ninkii rabo wadankooyis in loo celiyo uu noqon karaa wadankooyis loo celinaa waxaana ku qasbaaya nambarka wadankaaga hooyo lagu celinayo waxa lagu weydiin doonaa tirkoobka markaad galayso form ayaa buuxa formka ayaa buuxinaa inta rabta maxaa sameeyay ma waa lagu weydiin su'aalo ay leeyimaadeen ayaa lagu weydiin doonaa su'aalahaas ayaa keeni karaa inaad buufis ku baxdo iyo inaad Soomaali ku noqoto su'aalaha lagu weydiiyay aad ka jawaabto ayaa waxay keeni doonaan inaad buufis ku baxdo in Soomaali lagu celiyo inaad Kenya noqoto sidaas wax dhaxlaya lama jiraan meesha la maxraa iyo la kala diiday iyo iblaa diidiyo dawladda Kenya ay qaadatay iyo asoo dhamaato dheemaanta waxa way dhamaadeen waxa idin hor fadhiyo UN oo idin sheegayso in wadankiin dib u noqotiin haddii meeshan lagaaga tago oo aad diiday ay isdiiwaangelin wayso aad imaan wayso meesha lagaaga tago annaga wuxuu dhahay UN haddaan shaqo kuma lihin dadkaas waayo bari dawladda jirta meesha askara ku qabani allina haystaa ugu qabtaba gudaha lagu dhigi maxkamadaha lagu saari wax UN maxkamad kula koraysa ma laha mis UN ku badbaadinaysa ma jirto meeshan waxaa kaloo dhahay dadka ka soo jeeda jubbooyinka ka soo jeeda waxaad tegi kartaa Dhexbaayo waxaad tegi kartaa Baydhabo waxaad tegi kartaa Muqdisho Hargeysa Puntland garo meel kasta tegi kartaa wadankaada meel tegi kara ma laha nin kasta meeshuro aad u celinahay dad waxaa jira buufs ku jiro oo buufs wax maray oo buufs maray jira dadka buufska maray ay naftooda tirkoobka ku jiraan su'aalaha si ay lagu weydiinaa haddii buufiska su'aalihiisa lagu weydiiyo oo buufiska uu sax ku noqdo buufiska ku socon laakiin haddii su'aalihi ku sabaa in Soomaali ku noqdo naftaada oo buufiska xal lagu hayn waasta noqonaysa Soomaali ku noqonaysa ninka sargaalka nala hadlaaya oo head of operation UNHCR yaali qoxti u weyn wuxuu u socdaa Muqdisho nin buu keenay oo protection officer oo arinta ka shaqeynaya asaga laakiin beeskiisa wuxuu noqon doonaa Muqdisho meeshuu ku soo dhawaan doonaa meeshuu degi doonaa 2 sano contract wuxuu aaday Muqdisho wuxuu aaday waa daraadeen Allahumma balagtu ilaahay waa maqlaysaa in dadkii qoxtii mas'uulka ka ahaa oo uu joogo jeemankooda jeelid ay joogto mas'uuliyiinta shaqada ay joogan ka daran wuxuu u yeeray qaadidii magaalada yaxli Allah shaciisa u fadhiyay Allah shaciile uu fadhiyay shaxasana fadhiyay shaxasan way fadhiyeen wuu u sheegay shaciile shaxas wuxuu dhahay salaada markii la tukado dadweynaha u sheega in wadankoodii dib looga celinayo UNHCR ay soo sheegtay arinta wuxuu dhahay iga gaarsiin muslimiinta walaalada camalan ninkan wuxuu ahaa muslim wuxuu dhahay dadkan la celinayo oo dib loo celinayo xaquuqdoodii waxbarasho waa loo diyaarinay laakiin wuxuu dhahay waa inaad ku dartaa markii tirkoob lagu weydiinayo waxaa dhahay dib baan u noqonay laakiin waxbarasho ilmaha in nagala sameeyo in biyo aan helno in cunto bariyo la lahaayo bilooyinka la lahaayo waxa rabta basic need waxa hoose u baahan tahay qof bini'aadamka inta bilaasha ku barna bilaasha barna wax kas bilaasha barna waxa dhan inay UN u sheegto wuxuu dhahay dhaqaalaha UNHCR ay gelin doonto meeshaas inay ku saleysay taa warbixinta idinka naga qaado warbixinta laga qaado tirkoobka ayay ku saleyn doontaa warbixinta waxa nagala siin doono Soomaaliya waxa lagu saleyn doonaa warbixinta maanta laga qaaday halka laga qaaday oo tirkoobka laga qaaday ayaa lagu saleyn doonaa fadlan tirkoobka marka galayso waxaad hubin ku jawaabin dawladda Kenya iyo dawladda hay'adda UNHCR wuxuu dhahay waa ka in dheer tahay waxayna ka in dheer tahay inaad kibaano hoos gashato oo allina haysta adhaado oo adoo kibaano haysto aad qarsato dawladda ka in dheerto dhankas way wuxuu dhahay wax kasta database wuxuu dhahay NRB oo dawladda Kenya UNHCR database waa sidaan u dhahay sidaan waaye wuxuu dhahay wax ba kala duwan link waa isku xiriireen wax naga qarso anaga ma laha dad waxa jira kibaano la saaray ayoo kibaano qabin kibaanaha lagu saaray halkiis waa imaana had waxaan weydiin su'aal 2019 dad baa faraha laga bixiyay ilaa hadda waxba loo hayn dawladda Soomaaliya UNHCR ma ay xarta hadana inay noqon darto mar labaad inaad dhahdo kibaanaheen waa kan oo aan dhahdo kibaanaheen waa kan qabsada UNHCR qaado hadana email no ways anaga ay dhantada ku geerina wuxuu dhahay ninkaas arinta ma dhici doonto hadaa kibaanaha dhiibto waa dadka kibaanaha waa kan hooda qoxti aani
UNHCR iyo dadka aqliga oo fahmi karaan kaarka waa toon abis waa qaxooti hoys qaxooti waa ninka weyn qaxooti cuniga uu yarkan ka hor la yaabay inuu kibaana leey in cuniga iska tagay soo goos kibaana leey la arkay waa dawladda dadka qarsamo la dawladda Kenya ay diyaar u yihiin dadkan ay celiso wasay hor ugu dhawaaqday ay yiraahdo wadankiin aada dawladda Soomaaliya dawladda Soomaaliya UN Soomaaliya ayay diyaar yihiin in dadka ay qabsadaan ay meel la degaan diyaar yihiin way diyaarsan yihiin dadweynaha oo la dhahayo local diidiyo meesha kama guuleeniyo meesha waa qoybiran askale iyo waxaan hadda qaxootay Soomaaliya ka soo jeedo waxba kama jiraan hay'adda u deganay UNHCR saaki way maatay in badan bay dad meerisay laakiin saaki way maatay waxay dhahday waa guuleysaan waxba idima hayno UN hadana dawladda Kenya waa kala saxiixin inay guurtaan nin kasta asku tashto inta meesha maraysa maanta hasku tashto inaad Kenya noqoto oo qaar sadafto ku tasho inaad qaxooti noqoto oo Soomaali aad ama resettlement ay hesho nasiibkaaga tiilaa ku soo bixi ku tasho wax Burundi iyo Rwanda iyo meelaha la digayo la dhahay waxa ma jiraan ma hayno wadan kale either go back to Somalia ama third county heli labaas mid way waxaana ku salaysan arintaas ku heli doontaa verification exercise la sameeyo xog aruurin sameeyo xog aruurinta ku xiranta waxa hesho ma aha qasab inaad hesho bubis ma aha qasab inaad Soomaali ku noqoto ma aha noqotaanka urbataysiga qasab ma UN qasab kuma dheeyso kuma marar laakiin UN inay guurto meesha xirta ku sheegtay UN ku sheegaysa inay xirta meesha hadaa rabtay iska joog Kenya sanaqo bas ma tagsi joog daarta laakiin UN inay ul ku soo qaadko ma qaraacayso lagu fiijinay laakiin meesha waa la xirra macnaheedu cidda la xirra ariyo degan UN loo degan marka annaga waxaan ugu amray in Ilaahay ka cabsado aan la dadkii si aan wax u sheegno u gaarsiya ana inta narta karaankeyga aan waan gaarsiyo waan ii sheegay waan soo gelinaa warbixinada waan soo sheegay adiga loo amray in Ilaahay gaarsiyo kulli waasdaari maanta meesha joogdan hatta wuxuu dhahay turjuwaanki UNHCR usoo fiiristay wiilkii ay dhalinyarada soo fiiristay wuxuu dhahay turjuwaanki Amerika ka uu Fiji wuxuu dhahay jeemanka xarada ay haysto oo joogo ayaa ii turjuwaanay sufeed dadkiisa uu dhaadhiyo asagana u fahmo waayo dadweynaha raba in Allah loo dadweynaha iyo guddiga ay soo doorateen shaqsiinadada dhammaan ayaa meesha fadhiyeen shaqsiinadada loo sheegay gudoomiyaasha u sheegan dadweynaha u sheegan nin kasta oo shaqsiin ka soo jeeday shaqsiin leerkiisa weydiiyay waxa loo soo sheegay maanta hadal kasta ninka uu dhahay maanta wuxuu marqaati gishinahay Ilaahay marqaati gishinahay Ilaahay ogow inaan u sheegay inaan meeshan ka raray Ilaahay ogow inaan u sheegay inaan Muqdisho u hormaray oo aan waxaan qaban karo oo qabanayo Muqdisho oo qabanayo wixii liidi Muqdisho oo qabanayo aniga og in wadanka soo dadaab xiriir dadaab wax ka jir ayaa xagga daraadas u tagay nin cusub inta wadaama la Ilaahay dibkii qaban rag adag garanaysa ana saa ku aadu meesha u tagay waxaan diyaar u waday inaad ka noqotiin arinta daacad aad wadankiin ku laabatiin idinkoo safe oo waxba qabin wadankiin aad ku laabatiin marka arinta waa baan tahay tintarkoobka iyo bilaabitaankiisa iyo macluumaadkiisa guddiga tirkoobka iyo dadkii u shaqeynayay Nairobi ka imaanayaan isniin ay imaanayaan dadaab bashir ku gali doonaan kadib shirka isniin magaga talaada arbaca khamiis saddex xaraal ka aadaya waayo shirkii tirkoobka la galaa kadamba jimci waxa ka bilaaban doontaa xirada dhagaxley rumaas waxa maqlayaa dadweyne leh in saddex xaraal mar la bilaabay aniga ma maqlay taas ma sheekiri saddex xaraal bilaabay ma sheekiri hadday shirka soo dhamaaday hadday bixeen waxay aadeen ifo soo wixii ifo ay had aadeen waayo ifo ay xaqeeda si sugayeen oo u taagan wuxuu dhahay inaan maanta sabtu ay TV aan daarto guriga iska baxro iska baashaa ciyaaraha sida Brunei aan daado waan sameyn karaa ninkii laakiin waxaan u sameeyay waa dhahay mas'uulan qaadi Ilaahay aan ka cabsanaa mas'uulan u dhahay mas'uulan ahay mas'uulimada waxaan isticmaalaa u dhahay in dadkii wixii aan u sheegay waan bixi karin ninkan oo cusub la keenay inaan idin keenin bar intaas kii bixi karo dhahay laakiin waxa mas'uuliyadiisa arnaa waxay tahay inaan shaqada idin ku wareejiyo oo inta ka soo shaqeeyo idin tusto idin baro oo aad aragtaan marka dadweynaha waxa laga qariyay meeshan maraha nakasto saa u tashay la garanay hadaad inta joogayso hadaad dhoofayso hadii aad aadayso maxallahay Soomaaliya urbataysan qornayso marka dadweynaha walaalay waxaan u sheegayaa in arinta meesha ay ku soo dhamaatay maanta UNHCR ay noo cadeysay in waxba noo haynin
oo guur indhaadi wadankan Kenya waxay dhaheen wadankeena waa xirarnaa dadaba la xirraba 30 sano dheer soo jooga ani hadda walaalahay ma garanay Soomaali laakiin waxaan ku faraxsanahay in wadankii aan barto oo wadankii aan aado marka dadweynaha u sheegaynaa inay isku tashtaan kaarkaaga hadduu xiran yahay tirkoob umaaw haddii kibaana aan leedahay kaar dhacay tirkoob umaaw wax kasta aad tahay oo qaxooti aad ku joogto fadlan tirkoob ku umaaw marka dadweynaha waxaan u sheegaynaa in tirkoob nin uu ka xirneen nin kasta oo kaar haysta mise maruushtiisa wax ka haysta inuu imaan kara tirkoobka uu imaan kara u sheegaya marka allahumma balaqdu oo ii sheegay intii aan awoodey karaankeyga ah oo aan sheegi kara waan sheegay laakiin tan raashinka faa'iideeda iyo xogteeda hoose waa fadlan waa iisoo gudbin doonaa channelkana kala socon doontaa channel subscribe saar like saar share garay fadlan dadweynaha ku nool iyo dhalinyarada ku nool xerooyinka Dhadhaab u sheeg in warbixin meesha laga helo si warbixinada ay u socdaan muhiimka ah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh